wafdigii wasiiradaha ay ka socday xukuumadda Somaliland ee uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda maaliyadda Somaliland Sacad Cali Shire ayaa kormeer ku tagay mashaariico waxtar mug iyo miisaan leh oo xukuumadda Somaliland ka hirgelisay gobolka Togdheer. Seeraha banka aroori oo xukuumadda Somaliland gelisay dhaqaale iyo tacab lagu ilaaliyay dhul daaqsimeedkii xoolaha ayaa wafdigani kormeereen. mashruucan oo ay gacanta ku hayso wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysigu ay ka muuqatay tacab dadaal juhdi ay gelisay wasaaradda xanaanada xooluhu. isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Togdheer Cabdi Hindi ayaa wafdiga uga xog waramay mashruucan. runtii waxa loogu talagalay mashruucan livestock holding ground inuu noqdo meel xoolaha lagu hayo xilliga incubation periodka ama marka la talaalo in 21 days 15 days waqti kasta cudur kasta waqti uu leeyahay in muddada lagu hayo oo lagu nasiyo oo ay calafkoodii ay cunayeen biyahoodii iyo caafimaadkoodii iyo wixii la mid ah dhan imkaaniyaadkii ay dhamaan ka wada helaan baa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga Somaliland Xasan Maxamed Gaafadhi ayaa tilmaamay in mashruucan yahay mid najaxay oo qaranku baahi weyn ka dabooli doona. mashruuca arooriyad iyo ka qool cadayba wixii shaqaalaha uu ka tagay waxa la wareegtay wasaaradda qofka ma nantigin intii ka shaqeynaysay mashruuca ee mashruucu ka kacay ama ka dhamaaday dhamaantood waxa maanta gacanta ku haysa waa wasaaradda. inta gacanta waxba lagu beeraa waynu dul tagi doonaayo waxa lagu beeraa calaf baa lagu beeraa calafkaasuna waxa loogu talagalay in la isticmaalo xilliga ay adag tahay. deegaanka beer ee gobolka Togdheer ayaa wafdigani kormeer ku tagan sidoo kale iyagoona kormeeray mashruuc xukuumaddu ka beertay deegaankaasi. isuduwaha wasaaradda beeraha ee gobolka Togdheer Maxamed Cabdi Guray ayaa sheegay in 700 oo kiiloomitir ay xukuumaddu ka beertay cunto iyo calafkii xoolaha labaduba. 720 shaqaalaha ka ilaalinaya iyo ka goynaya halkaana wasaaraddu wuxuu ma soo saartay kaliya 5 baa ka hawlgalay kuwa ilaaliya iyo kuwa goynaya oo de mushahar ku qaata 700 hektar haruurkan waxa weeye kii dayrta ee sanadkii hore 2018 wasiirka wasaaradda beeraha jamhuuriyadda Somaliland Axmed Muumin Seed ayaa ku tilmaamay in qorshaha qaranka lagu horumarinayo wax soo saarka dalka uu ka mid yahay mashruucan isla markaana ay shaqo abuur ka heleen dadka deegaanku. arrimad baa laga faa'iideeyo wixii ka soo go'ay raashin ahaan iyo calafka xoolaha waxaanu inta badan aad uga cabanaa waxa weeye xoolaha sanadkii dhaweyto wajaala ugu muxuu ahay calaf fadneed wixii beer ka soo go'ay calafka waxaanu deynay dadka deegaanka beereed xaaxi wixii ka soo go'ayna xaaxi baan u deynay markaanu talada la wadaagnay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland oo go'aansanay in wixii maadaama ay asayna xoolo u dayacmin xoolahan ku caawnay wixii ka soo go'ay wajaalana dadkii deegaankan iyadana haddana u qaybinay oo waliba waxa u badnaa wajaala geesta kalena waxay wafdigani kormeer ku tageen warshada saabuunta Ilays oo kamid ah shirkadaha waaweyn ee dalkan jamhuuriyadda Somaliland. shirkadani ayaa soo saartay adeegyada Tayda, saabuunta, shaambooyada, saabuunta adag iyo waliba adeegyo kale kuwaasi oo guud ahaanba dalalka la jaarkaaba ay gaarsiiso mashaariicahani. gudoomiyaha shirkadda Ilays Nuur Ducaale ayaa wafdiga xukuumadda ku soo wareejiyay habka iyo hanaanka ay shirkaddu u shaqeyso waxaana uu uga waramay taariikhda iyo muhiimadda shirkaddan u leedahay dalka. soo indheeyay dhammaan qaybaha ka kooban tahay warshada saabuunta Ilays oo maanta maraysa sanadkii 15aad ay furaato 2004 baa la bilaabay meeshaan arkayna degay ilaa maanta 14 sanadood 15 sanadood ayay socotay warshadaasi. maanta waxay maraysaa saabuuntii adkayd jirka iyo tiidharka iyo saabuuntii Tayda ahayd ee budada ahayd iyo shaambooyadii iyo jaafeelkii intaasoo shibay soo saartaa waxay gaadhaan dhammaan wadamada Djibouti, Ethiopia, Soomaaliya iyo Somaliland oo dhan. wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Somaliland Maxamuud Xasan Sacad Saajin ayaa sheegay in xukuumaddu dhiirigelinayso wax soo saarka dalka iyo ganacsatada shaqo abuurka siisa bulshada ee faa'iidada u leh dalka. ilaha dhaqaaluhu de wadan ma kobci karo haddii ilihiisa dhaqaaluhu ayna kobcin. warshadu waxay ka mid yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan marka loo eego xabad ahaan shaqaalaha ugu badan
abuura warshadan 120 shaqaalaha ayaa iminka jooga Cabsaaq Faarax Cabdilaahi TV-ga qaranka Somaliland Burco